Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal dhammaantiin waa idin salaamay waxaa idin hadlaya waa ifaya channelka idin kala hadlayna waa faafiye fudud fadlan waxaa idin kacsanaa channelka inaad subscribe noo saartaan fiidiyowga aan soo dhigna like noo saartaan commenti sharena aad nagu dhahdaan asxaabtiin waa mahadsantiin dhammaantiin waxaa idinka codsanaa inaad muuqaalkan si wanaagsan u daawataan waxaan rabaa inaan idinku soo gudbiyo fiidiyow yar oo gaaban 5 daqiiqo ee soo aadan idinkana aad wax ku fahmi doontaan marka waxaan rabaa maanta inaan wax badan idinka caawiyo taasoo ah tusaale ahaan adigoo rabta maanta inaad qof WhatsApp u dirto luuqadii aad u diri lahayd ama maanta qofkan waxaa rabtaa inaad luuqad kale ugu jawaabto Ingiriisi ha ahaato Carabi ha ahaato intaba aad ka saynin marka waxaan rabaa inaan ku tuso hab fudud oo WhatsApp-ka aad uga tarjumi karto tusaale ahaan intaad Soomaali ku qorto aad ugu bedeli karto Ingiriisi ama luuqadii aad rabtay caalamka fadlan waxaa idinka codsanaa mar labaad inaad channelka subscribe ii saartaan meel fiican aadna geysaan dhiirigelintiina waa noo muhiim marka hadda si toos aan WhatsApp-ka u tagaynaa WhatsApp-kan soo furaynaa WhatsApp-kan soo furnay tusaale ahaan waxaan rabaa qofkaanaan rabaa inaan fariin u diro af Soomaali ayaan qorayaa kadibna waxaan u bedelayaa luuqadda Ingiriiska marka si aan ugu bedelno luuqadii meeshaas calaamadda saddexda gees ayaa taabanaysaa calaamad saddexda gees markii aad taabato meeshaas searching xaga ka soo xigtay ee ku qoran tahay translate ayaa taabanaysaa marka meeshan waxaa kugu soo baxay luuqadaha kuu saaran dhan aniga hadda luuqadda Ingiriisi iyo Soomaali ayaa ii saaran haddaan meeshan falaaraha dhexda ku dhuftana way kala wareegayaan Ingiriiska ayaa xagga soo maraya Soomaaligana xagga ayaa soo maraya marka haddii aad rabto inaad beddesho qaybta Soomaaliga ayaad ku dhufanaysaa dhammaan luuqadaha meeshaas kaaga soo baxayaan midda aad rabtana waa ka dooray marka aniga hadda Soomaali ayaa ii dooran dhinaca kalena iyadana waa isla cagsigeeda kale dhammaan luuqadaha way ku jiraan midii aad rabto ayaa ka dooran kartaa tusaale ahaan English to Carabi isku fasiri kartaa Soomaali to Carabi isku fasiri kartaa Chinese iyo Faransiis inta waa isku fasiri kartaa marka meeshan ay ku qoran tahay enter text to translate ayaa qoraalka gelinaynaa tusaale ahaan waxaan leenahay see tahay of Soomaali ku qornay kadib waxaan rabnaa inaan u bedelno Ingiriis geeskaas hoose meesha search-ka taleefanka ku qoran tahay hadda waxaa ku qoran translate qaybta translate-ka taabani isla markii qaybta kore text-ka laga diray ayuu kuu soo gelinaa how are you sidee marka qofkan waxaa u diray sidee tahay of Ingiriisi dhammaantiin waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka wada hesheen fadlan like iyo subscribe ta naga xasdina noo saaro waa mahadsantiin dhammaantiin aad iyo aad